بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal waxaynu soo bandhigi doonaa xadiid cajiiba oo nebigeennu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay inuu ruuxii ducada xadiiskaa ku jirta marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barya alla waa ka aqbalaya dhib kastoo ku haysata noocay doontaba ha ahaato, werwerya walbahaar ha noqoto, muruga ha noqoto, cabsi ha noqoto, ammaan darra ha noqoto, uruga iyo tiiraanya ha noqoto, caloolxuma ha noqoto, caafimaad darra ha noqoto, dhaqaale yari ha noqoto. subxaan allah, dhib kastoo adduunyo noocay doontaba ha noqotee alla subxaanahu wa tacaala waa kaaga faydaya, waana kaaga dulqaadaya. waa haddii aad rabbigaa ku baridid ducadatan. tolow ducadan cajiibkaahi waa maxay? tolow ducadan la yaab kale waa maxay? nebigeenna inooga warramay, qur'aanka laftigiisuna wuu tilmaamay, laakiin ducadani waxay leedahay qisadaasaa bal markaa siday u soo aroorteen wax uga tilmaami doonnaa insha allahu tacaala. saxaabigii weynaa ee qaaliga ahaa ee sacad ibn abi waqaas radia allahu canh, oo ka mid ahaa 10kii saxaabiya jannada hal mar loogu wada bushaareeyey, ayaa wuxuu soo maray saxaabi kaloo weyn oo masaajidka jooga. waa cuhmaan ibnu cafaan dannuurayn, khaliifkii saddexaad ee muslimiinta. markaa wuu salaamay sacad oo salaantii islaamka ayuu ku salaamay, laakiin cuhmaan salaantii kamuu qaadin oo wax kale ayuu ku fakarayay ama meel kale ayuu fiirinayay. subxaan allah, arrintiiba markaa uu sacad ibn abi waqaas uu weyneeyey, oo markaa arrin cajiiba bay ku noqotay, arrin la yaab leh. sidee baa markaa saxaabigaa weyne uu salaantii uga qaadi waayey? kadibna wuxuu u tegey amiirkii mu'miniinta cumar alfaaruuq oo markaa khilaafadii islaamka hayow madax u ahaa. wuxuu dhahay markaa, cumar ibnu khataabow, yacnii walaalkay cuhmaan ibnu cafaan ayaan salaamay, salaantiina wuu iga qaadi waayey, ee islaamkii maxaa ku soo kordhay? cumar ibnu khataab wuxuu yeedhay markaa cuhmaan ibnu cafaan. cuhmaan ayaa wuxuu ku yidhi, maxaad walaalkaa salaanta uga qaadi weyd? cuhmaan wuxuu yidhi, maadiga manaa kuba arkayba, miyaad i soo martay mise waad ii salaamtayba? wuxuu dhahay markaa sacad ibn abi waqaas radia allahu canh, waan kuu imi oo waan ku salaamay. dabadeedna erayadii bay isku celceliyeen. calaa kulli xaal markii dambe ayuu cuhmaan ibnu cafaan wuxuu dhahay, haa waad i soo martay, iminkaan xasuustay, laakiin wax kale ayaan ku fakarayay oo qalbigaygiiyo ishaydaba daboolay. wuxuu dhahay, maalin annagoo la fadhina nebiga ilaahay moxamed sala allahu calayhi wasalam ayuu wuxuu nagu dhahay, waxaan idiin sheegayaa duco cajiib ah oo marka haddii aad ilaahay aad ku baridaan muslimiinay, uu ilaahay idinka aqbalaayo ducooyinkiinna. markaa saxaabadii oo dhan waxaannu doonnay buu yidhi inaan ogaanno ducada tan la yaab kale, laakiin nin acraabiya oo reer baadiye ah ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u soo galay oo mashquuliyey. kadibna masaajidka ayuu ka baxay. dabadeedna sacad ibn abi waqaas laftigiisii baaba yidhi, aniga ayaa garanaya ducadatan. nebigu markuu baxay calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu idhi, ayaan ka daba baxay oo markaa gadaashiisii halkaasan labadeedii lugood dhulka ku dhuftay buu yidhi si nebigu u soo jeesto. nebigu wuu soo jeestay sala allahu calayhi wasalam. markaasuu wuxuu dhahay, yaa abaa isxaaq, ninkii dhalay isxaaqoo waa kunyadiiyo naanaystii markaa saxaabigan sacad ibn abi waqaas radia allahu canh. maxaad u baahan tahay buu yidhi. wuxuu dhahay markaa sacad ibn abi waqaas, rasuulka ilaahayow waxaad nagu tidhi waxaan idiin sheegayaa duco, haddii aad ilaahay ku baridaan ilaahay idinka ajiibay. wuxuu dhahay nebigu calayhi salaatu wasalaam, ducadaasi waxa weeye waa ducadii uu ku ducaystay walaalkay nebi yuunus calayhi salaam markii uu ku jiray 3 mugdiyaal ee uu kalluunka hoostiisa ama calooshiisa uu ku jiray, ee 3 mugdi, tii habeenka iyo mugdigii badda iyo mugdigii caloosha kalluunka. subxaan allah. muxuu dhahay markaa nebi yuunus calayhi salaam markii uu ducaysanayey, wuxuu dhahay, fanaada fi ظulumaati an laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aldaalimiin. nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, ducadaasi waxa weeye laa ilaaha ilaa anta subxaanak innii kuntu min aldaalimiin. waa taas ducada ilaahay subxaanahu wa tacaala ruux kastoo ku barya
uu ka ajiibo uuna ka aqbalo dhib kastoo haysatana uu kaga dulqaado uuna kaga faydo insha allah. waxaa kaloo axaadiiskan iyo ducadan ku soo arooray axaadiis tiro badan oo tilmaamaya xitaa inuu allah subxaanahu wa tacaala uu ducadan uu ku farxo uuna ku qoslo. qosolka ilaahay iyo farxadda ilaahayna waa mid u cuntanta mid la mid ah noolihiisa maahe waa mid ku habboon rabbigeen subxaanahu wa tacaala, sababtoo ah ilaahay waxa weeye laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu albasiir. wax u dhigmaa ma jiraan, waana maqlaha maqla wax kasta, waana arkaha arka wax kastaba. alle subxaanahu wa tacaala ducadan wuu ku farxaa oo wuxuu dhahaa addoonkaygii wuxuu ogaaday in cid kaloo u dembi dhaafaysa aanay jirin aniga mooyaane, wuuna ugu dembi dhaafaa ciddii dhib ay haysatana dhibtaas ayuu alle kaga faydaa. marka walaalayaal, haddii ay dhib ku haysato ama marka aad muraad aad rabtid, ducadan in badan ku celceli, in badan ku celceli, sababtoo ah waxaa jirta boqolaal qiso oo qof kasta oo dhib uu haystay uu ku tilmaamayo markii uu ducadan ilaahay subxaanahu wa tacaala markaa uu ku bariyey uu ilaahay dhibtii kaga dulqaaday, waxyaalihii muraadkooda ahaana ayagoo khayr ah hoosan uu siiyey ayaa markaa dad badani ay kuu sheegayaan oo ay ku tilmaamayaan. dabcan dee ilaahay baaba kuu sheegayo waa ka qur'aanka ku leh markuu nebi yuunus calayhi salaam ducada uu ka dhex yidhi calooshii kalluunka ayuu alle wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fanajaynaahu min alghammi, markaas ayaan ka dulqaadnay oo aanu ka korinoo ka badbaadinay nebi yuunus dhibtii iyo warwarkii hayay iyo walbahaarkii. wakadalika nunji lmu'miniin, sidaas oo kalena waxaan u badbaadinaynaa mu'miniinta iyo kuwa markaa ducadatan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barya. ilaahay baanu ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga yeelo kuwa ilaahay ducadan iyo ducooyinka kaleba uu ka aqbalo, una dembi dhaafo dhibta iyo adduunyada ku haysatana uu ka faydo uuna ka dulqaado, uuna ka badbaadiyo dhibta adduunyo iyo dhibta aakhiraba. هذا والله أعلم وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى اللهم على سيدنا محمد.